adduunyadu waa imtixaan wax walba aad ku arkaysid halkan waa Somali Sudanese Hospital waxa kula kulmay dhacdo naadir ah oo inta badan aan ka dhicin wadankeena taasi oo ah in hooyo Soomaaliyeed ay dhashay laba cunug oo mataamo ah kuwaas oo isaga dhagan qaybaha hore ee jirkooda oo dhan waxa ay leeyihiin afar gacmood iyo laba lugood oo ay wadaagaan dhacdada la yaabka leh ayaa ah marka uu hurdaayo mid ka mid ah mataanaha in uu kan kala soo jeedo waxa intaasi dheer in mid walba oo iyaga ka mid ah uu dhaqaajinayo lugta iyo gacanta xigta isaga Bismillahir Rahmanir Rahim waxaan ahay hooyada dhashay gabadha cunugga mucjisada dhashay waa umayar oo laba hal wuxuu yahay lamaheedana waa gabar laba lugood ay leeyihiin laba madaxay leeyihiin afar gacmood ay leeyihiin waa mucjiso rabbaaniya waxaan ka codsanaynaa ilmu diinka xataa quraanku wuxuu noo gala ganacsatada ummadda ilaahay intii madalkeena iyo muuqaalkeena arkayso jaaliyada ummadda Soomaaliyeed inta muslim baa oo arkaysa dhibaatada dhibeyso waxaan rabnaa inay naga saacidaan xaq daawo annagu meel geesa ma kahno oo dhaqaale meel ku geesana ma lihin indhaha hataa ma lihin oo meelaha lagu qaato lagu maro dhibaato qad soo arkay ma ahin waxaan ka codsanaynaa in nagala caawiyo Bismillahir Rahmanir Rahim magacay waa Sahar Umar Maxamed waxaan maamulka aan ku jiraa oo staafka Somali Sudanese Specialist Hospital qaybta caafimaadka iyo bukaanjiifka marka waxaan ugu yimid isbitaalka hooyo Soomaaliyeed oo waxaan ku iraaday xaamila ah oo foolanaysay in muddo ah isbitaalka markay imaadeen oo dhaqaatiirta ay la kulmeen ka bacdi gabadhi waxa ku soo baxday inay fooshi ay sii socon weysay oo ilmihii ay dhali weysay ka bacdi qaliin ayaa lagu suubiyay qaliinkiina waxaan ku iraa waxa hooyadii Ilaahay ka soo bixiyay laba ilmood oo mataamo ah oo conjoined twins ah oo Ilaahay isku abuuray qaybta dambe ilmaha afar gacmood ay leeyihiin laba lugood ay leeyihiin qaybta dambe way isaga dhagan yihiin marka alxamdulillah waa Ilaahay wuxuu keenay waay Ilaahay maartay hooyadii ilmuhu labaduba aad u fiican yihiin ilmaha caafimaad ahaantooda abuurka Ilaahay uu abuuray maahan sidoo kale aad ay u fiican yihiin hooyada maartay maama la qalay ilmo lagu soo qalay ahaanteeda maahan shida kale iyo maartay xaalad ku timido maxaan ku iraaday moral ahaanteeda maahan sidoo kale aad ay u fiican yihiin muhiimadda fariintan ayaa ah in qof waliba oo damiir leh uu soo caawiyo ilmahan aadka u yar ee dhalan muddada 3 maalin ah